haddii dunida ay ku noolaan lahaayeen 100 qof sidan ayuu u ekaan lahaa 50 qof waxa ay ahaan lahaayeen rag 50na waxa ay noqon lahaayeen dumar 25 qof waxa ay u dhaxayn lahaayeen eber ilaa iyo 14 jir 66 qof waxa ay jiri lahaayeen 15 ilaa iyo 64 9 qofna waxa ay ahaan lahaayeen 65 iyo wixii ka weyn marka ay timaado juqraafi ahaan 60 waxa ay ku noolaan lahaayeen Aasiya 15na waxa ay ku noolaan lahaayeen Afrika 10na waxa ay ku noolaan lahaayeen Yurub 9 waxa ay ku noolaan lahaayeen Latin America iyo Caribbean-ka 5 waxa ay joogi lahaayeen North America marka diinta laga hadlo 31 waxa ay ahaan lahaayeen Christian 28 waxa ay noqon lahaayeen Muslimiin 16na diin ma aysan haysan lahayn 15 waxa ay noqon lahaayeen Hindu 7 Buddhism 8na waxa ay rumayn lahaayeen diimo kale marka ay timaado luqadaha 12 waxa ay ku hadli lahaayeen Chinese 6 Spanish 5 English 4 Hindi 3 Arabic 3 Portuguese 2 Russian 2 Japanese 60 kalena waxa ay ku hadli lahaayeen luqado kala duwan marka ay timaado akhriska iyo qorista 86 wax way qori lahaayeen 14 kalena waxba ma qori lahayn marka ay timaado waxbarashada kaliya 7 qof ayaa haysan lahaa shahaadada college-ka 91 waxa ay heli lahaayeen biyo nadiif ah 9na ma aysan heli lahayn 11 qof nafaqa darro ayaa hayn lahayd halna HIV halna waxa hayn lahaa cudurka loo yaqaan qaaxada 11 qof waxa ay ku noolaan lahaayeen $1.9 maalinka oo dhan 82 qof waxa ay heli lahaayeen koronto 18na ma aysan heli lahayn kaliya 65 qof ayaa taleefan haysan lahaa 47 qof ayaa internet isticmaali lahaa 3 cashir oo aad u muhiim ah ayaan ka baran karnaa arrintan waa midda koowaad kala duwanaanshaha sideebuu xaalku ahaan lahaa marka qof walba anaga oo kale yahay qiyaas marka qof walba u fikirayo sidaada oo kale u soconayo sidaada oo kale adduunku wax uu noqon lahaa meel aan xiisan lahayn maxaa yeelay ma jirto luqad cusub oo la baranayo ma jirto dhaqan cusub oo la qabsanayo arrinka labaad ee aan ka baranay waa in aan ku faano waxa aan haysano arrinka saddexaad waa in aan noqono dad la socda adduunka noloshana aan ka dhicin